رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخي وأختي مربتا إن دنبقاق لدافو. طبعا جوابت وها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيا وحوم مقلي صحابي إسوغو صلاة كجرة التحيات كمركو أقرنايي دعادا صوصو أقرنايي wuxuu yidhi saxaabigu allahuma inii as'aluka yaa allah alwaaxidu alaxadu alsamadu aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an tagfira lii dunuubii inaka anta algafuuru raxiim. aan ku celiyo allahuma inii as'aluka yaa allah الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. رسولك وحولي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له قد غفر له ولا ننكا دنبغيسي والله ضعف ولا ننكا دنبغيسي والله ضعف قد غفر له قد غفر له. هذا إخواني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باوحوا ليه دنبغيسي والله ضعف. الله نوحوا ليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحى النبي الله محمد كه الله ياي ووحي الله شاغ وحان أغهي waxa aynu u ordayneen wada jecellahay inuu yahay ilaahay dembigeenna inuu noo dhaafo. ku ducayso ducada, sujuuddaada ku ducayso, ataxiyaadka ku ducayso, xilligii ilaahay ku waafajiyaba ku ducayso. allahuma inii as'aluka yaa allah alwaaxidu alaxadu alsamadu aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an tagfira lii dunuubii inaka anta algafuur raxiim. haddii aad u baahato inaad ducadaa xifdido, kitaabkaas xisnul muslim aad ka heli karto maktabadaha iyo guryahoo dhan yaala beijka 45 bay uga qoran tahay ducadaasi. beijka 45 safxada 45 bogga 45 baad ka heli doontaa. ma rabtaa inaad barato ismullaahi alacdam, magaca ilaahay ee weyn? waa midkaa haddii ilaahay lagu baryo ilaahay uu ajiibayo qofka, wixii lagu weydiistana uu allah subxaanahu wa tacaala ruuxa siinayo. rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu ku dhaartay ducadan soo socota inuu ku jiro ismullaahi alacdam. ducadu waxaa weeye markuu maqlay nin asxaabta ka mid ahood ataxiyaadka ku aqrinaya ducadan ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka hadlay allahuma inii as'aluka biana laka alxamd laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika laka almannaan yaa badiica asamaawaati waalard yaa da aljalaali waalikraam yaa xayu yaa qayuum إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أنكو عليو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. رسولكم مركب مغلى الدعاء نن أقرنايا وحو كي يري مقرنيسان وحو إلهي كبر يقف كان وحا ليلي مايا وحول والذي نفسي بيده
waxaan ku dhaartay macbuudka naftaydu gacantiisa ay ku jirta wuxuu ku baryey ismullaahi alacdam oo ah magaca ilaahay ee weyn oo ah midka haddii ilaahay lagu baryo ilaahay ajiibayo midka haddii wax lagu weydiistana qofka uu siinayo ismullaahi alacdam waa la qariyey wuu qarsoon yahay sida jumcada ay ugu jirto saacatul ijaabo aan la garan karaynin xilligay saacadda saasi tahay ee loo qariyey baa magaca ilaahay ee acdamka ana loo qariyey sida leylatulqadriga loo qariyey ee bisha ugu dhex jirtaa isagana loo qariyey marka magacyadan ilaahay ee ku taxan waa midkee allahu aclam culimmada qaar sida ibnulqayim iyo kayrkii waxay rajaxayaan inuu ku jiro alxayu alqayuum labadaa magac midkood inuu yahay bay rajaxayaan laakiin cid toos u garanaysa male ducadan marka haddaad aqrido waxaa garanti ah inuu ismullaahi alacdam ku jiro inuu ku jiro allahuma innii as'aluk biana laka alxamdu laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika laka almannaan yaa badiica asamaawaati waalard yaa da aljalaali waalikraam yaa xayu yaa qayuum intaasoo magac mid ka mida buu noqon karaa ducadaas atixiyaadka ku aqriso sujuudda ku aqriso xilligaad ilaahay qunuudka ku aqriso xilligii alla ku waafajiyo ku aqriso wajazaakum allahu khayr haddii aad u baahdo inaad xifdido ood korka ka qabato kitaabka xisnu muslimka ah ducadaasi waxay uga taalaa bageka 45 45 ee bogga 45aad ayaad ka heli doontaa walaal waxaan rabaa inaan idhaahdo ma jeceshahay inaad jannada ilaahay gasho dabcan jawaabtu waa haa kulligeenna waan doonaynaa jannadiisa inaan galo ilaahay subxaana wa tacaala hayna waa arsaaqo laakiin waxaa jira su-aal ama arrin tala uu bixiyey nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam haddii aad samaysana jannada waad geli in shaa allahu tacaala haya bina nakeena marka aan jannada ilaahay galle rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka aqriya man qara'a duburi kulli salaad kasta markuu tukado ruuxa aqriya aayatul kursiga allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm aayaddaa ruuxa aqriya kitaabka qur-aanka haddaad furto suuratulbaqara ee aayadda 255 lambarkeedu yahay weeye kitaabka xusnu muslimka ah haddii aad soo qaado waa beijka ama bogga 50aad bay uga qoran tahay waa aayatul kursiga laga yaabo qof walba habeenkii markaad sii seexanee sariirta aad gasho inaad aqrido wax badanna lagu sheegay rasuulku sal alla alay slam shaydaanna uma soo dhowaado qofka aqriya uu ku yidhi aayaddaas haddii aad aqrido salaada markaad ka baxdo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qofkaas jannada ilaahay waxaa ka xiga oo keli ah inuu dhinto allahu akbar jannada waxaa ka xiga inuu dhinto uu geeriyoodo keli a baa jannada ka xiga bimacnaa hadduu dhinto jannadu hore ka gelaya haddaba tani waa garanti uu bixiyey nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam wamaa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ballanteenu waxaa weeye salaad kasta markaad tukato aayatul kursiga akhri xifdi sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi waxaa ku jira aayatul kursiga 27 sifo oo min sifaati illaahi subxaanahu wa tacaala 27 tilmaan oo allah iska leeyahay ayaa ku kulansan sifaatulkamaal aayadday ku jiraan sifaadkii naqsiga oo ilaahay loo diidayna aayadda way ku jiraan wa acdamu aayatin fii kitaabillah waa aayadda ugu weyn ee kitaabka ilaahay dhammaantiina aayadda ugu weyn waa aayadda
marka asraar baa ku duugan. sidaas darteed buu rasuulku u yidhi sal alla alay slam qofkii aqriya shaytaan uma soo dhowaado. habeen walbana la rabaa inaad aqrido, salaad walba marka ka baxdana la rabaa in la aqriyo. in sha allah ilaahay haynagu hadeeyo inaynu aqrino, jannadiisana allah inoogu bishaareeyo. 10kii dambe ee bisha ramadaan baa caawa inoo bilaabmaysa. ilaahay laylatul qadrigana hayna waafajiyo. akhii wa ukhtii, ma rabtaa salaadaada in la aqbalo? waxaad aqridaa ducadan rasuulkuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam, qofka aqriya ducadan markuu habeenkii soo kaco uu soo tooso, dembigiisa waa la dhaafi. hadduu ilaahay wax weydiistana wuxuu weydiista waa la aqbali. haddii uu istaago markaad soo kacda sariirta ka kacdo oo uu weysaysto oo salaad uu galana salaadiisa waa la aqbali. waa garanti rasuulka ka sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam. xadiidku waa saxiix. rasuulullaahi sala allahu calay wasalam oo allah uu leeyahay wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa, baa wuxuu ku leeyahay haddaad weysaysato ood salaad tukato salaadaada waa la aqbali. ducadu waxaa weeye laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim rabbi اغfir lii. aan ku celiyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim rabbi اغfir lii. ducadu waa intaasoo isla socota. haddaba ducadaas naftayda iyo taadaba waxaan u dardaarmi. waan hubaa waxaad ugu jeceshahay inuu yahay salaadaada inaad ogaato in la aqbalay. waana howl allah subxaanahu wa tacaala la jirta. innagana arkaanteeda iyo sunanteedii baa layna raaciyey inaynu la nimaadno. laakiin middani waa mid rasuulku ku sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam, haddii ducadan aada aqrido markaad soo kacda habeenkii eed hurdada ka soo kacdo ood intaad istaagto weliba weysaysato ood salaad tukato, dembigaagana waa la dhaafi, waxaad ilaahay weydiisatana waa lagu siin, salaadaadana waa la aqbali. ilaahay subxaanahu wa tacaala haynagu hadeeyo oo allah hayna karsiiyo. ikhwaani, halkan waxaan ku baranaynaa duco macaan, jawaamicul kelim iyo ereyo waaweyn oo macno badan keenina ku jiraan. rasuulkuna baray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xaaskiisii uu jeclaa waa caaisha radia allahu canha. licilmin bihaa, wax uu ku og yahay ayuu ugu tawjiihiyey caaisha ducadan inay barato, si gaara ayuu barato. waxay tahay ducadu inuu yidhi sala allahu alay wasalam, allahuma inii as'aluka min alkhayri kullih caajilihi wa aajilihi maa calimtu minhu wamaa lam aclam, waacuudu bika min ashari kullih caajilihi wa aajilihi maa calimtu minhu wamaa lam aclam, allahuma inii as'aluka aljannata wamaa qaraba ilayha min qowli aw camal, waacuudu bika min annaari wamaa qaraba ilayha min qowli aw camal, allahuma inii as'aluka min khayri maa sa'alaka cabduka warasuuluka muxamadu sala allahu calayhi wasalam, waacuudu bika min shari ma stacaadaka minhu cabduka warasuuluka muxamadu sala allahu calayhi wasalam, waas'aluka maa qadayta lii min amrin an tajcala caaqibatahu lii rushdaa. ducadaas waa duco macnaheedu uu aada u weyn yahay. waa duco ilaahay lagu warsanayo jawaamicul kelim, khayr oo dhan kii hore iyo kii dambe. jannada ilaahay lagu warsanayo, naartana laga magangelayo,
waa duco la weydiisanayo wax alla wixii nebiyullaahi moxamed allihiisa weydiistay baan ana weydiisan baa tiri wax alla wixii nebiyullaahi moxamed allihiisa ka magangalay baan alna ka magangelayaa waa duco la weydiisanayo ilaahayow waxa aad ii qadartay xataa hadduu shar ahaa ilaahow khayr iiga dhig oo ii hagaajo aan ku celiyo ducadan allaahuma inii as'aluk min alkhayri kullihi caajilihi waaajilihi maa calimtu minhu wamaa lam aclam waacuudu bika min ashari kullihi caajilihi waaajilihi maa calimtu minhu wamaa lam aclam allaahuma inii as'aluka aljannata wamaa qaraba ilayha min qowlin aw camal waacuudu bika min annaari wamaa qaraba ilayha min qowlin aw camal اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا دعاء إخواني هدي أدربتو إن إيضا براتو kitaabka la yidhaahdo sifatu salaati الnabiyi lisheekh اlalbaniyi oo min atakbiiri ila tasliim sifatu salaadka kitaabka la yidhaahdo waxay ku qoran tahay bogga 161 in sha allahu tacaala ilaahi subxaanahu wa tacaala walaalayaal maanta duco aada u wanaagsan ayaan in sha allah naftayda tiinaba usoo gudbinayaa waa duco rasuulku ku tilmaamay sala allahu calayhi waaalih wasalam nin aqrinaya markuu maqlay 32 malag ayaa u kala baratamaya oo u tartamaya koodii qaadi lahaa ilaan acmaasha fiican kor baa la geeyaa waa loo qaadaa kelimada wanaagsan allah loo koryeelaa marka ducadaasi waxay ahayd markuu rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam maqlay isagoo oo salaada tukanaya rukuucda marka laga tooso ictidaalka la galo samica allahu liman xamida la yidhaahdo yaa nin asxaabta ku jiraa wuxuu yidhi ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى دعاء سواقري أنكو عليو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى دعاء سواقري markuu rasuulku salaada ka baxay sala allahu calayhi wasalam buu yidhi yuu ahaa ninkii aqrinayay ducada hadda nin saxaabiya baa yidhi aniguu ahaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay 32 malag oo tartamayoo kala ordaya koodii ducadan qaadi lahaa bay u kala baratamayeen yaa subxaana allah waa ducadaas aan aqrinay 32 malag baa ducada u tartamay acmaasha wanaagsanas ilaahay baa loo geeyaa inuu camal fiican yahay loona kala baratamay waxa fiican waa loo kala cararaa tasaabuq baa loo galaa marka sidaas ayuu rasuul ku tilmaamay qofnownayayna kaa tegin marka aad ka soo toosto rukuucda eed samica allahu liman xamida aad tiraahdo inaad tiraahdo rabbanaa walaka alxamdu xamdan kahiiran طayiban mubaarakan fiihi mubaarakan عليه كما يحب ربنا ويرضى كتابك صفة صلاة النبي الشيخ الألباني هدي أضحيسته وحد كفي رساء بيجك بقول يلباتن إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته